kadiska beerdhiga waa barnaamij xiiso badan oo warbaahinta beerdhiga ugu talagashay kor u qaadista garaadka iyo aqoonta bulshada. hal su'aal ka jawaabo mutayso abaalmarin lacaga beerdhiga.com. الرحمن الرحيم magacaaga saddexan walaal magacayga waa ka horeysay lacagta miiska saarta lacagta waa lagu siinaya lacagtu haddii su'aasha ka jawaabto mar wali oo diyaarnaysa lacagta ma ay badoonaysaa mise magaca mise magacaaga marka koowaad sidee magacayga waxa la yahay cirka mare waayo ma santahay hal su'aal aan ku weydiin doonaa halka su'aal hadaad garato abaalmarin $5 waad qaadan doontaa marka isku day marka waad ku soo dhawo barnaamijka kadiska beerdhiga su'aash okay waxaad sheegtaa saxaabigii isagoo oo aan weligii tukan haddana jannada galay Abubakar Sadiq ma santahay bismillaah walaal magacaaga marka koowaad magacayga waxa la yiraahdaa Saxaaq Cabdullaahi Maxamuud waa madaxa marketingka shirkadda Gurmad ee korontada okay waa yahay barnaamijkani wuxuu noqon doonaa hal su'aal baan ku weydiin doonaa barnaamijka magaciisa waxa la yiraahdaa barnaamijka kadiska beerdhiga haddii aad hal su'aal ka jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin dhan $5 marka ku soo dhawo barnaamijka waa dhawahay okay waxaad sheegtaa saxaabigii isagoo oo aan weligii tukan haddana jannada galay waxaan maleynayaa su'aashaasi waana kadis waana su'aal diiniya haddeer maskaxdayda kuma jiro magaciisu okay waa mahadsantahay bismillaahi raxmaani raxiim ku soo dhawo marka koowaad barnaamijka kadiska beerdhiga bismillaahi raxmaani raxiim allahu akbar dhalan dhoolay dhabadan hayaa dhankeeda ay socotaa ma farmaajay ku socotaa maasanid barnaamijku waxa uu yahay hal su'aal aad ka jawaabi doontaa halka su'aal aad ka jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin dhan $5 marka barnaamijka ku soo dhawo magacaaga oo saddexan jaamac maxamuud axmed jaaluwa okay waxaad sheegtaa su'aasha ku soo dhawaada waxaad sheegtaa saxaabigii isagoo aanan weligii tukan haddana jannada galay saxaabigii isagoo aanan weligii tukan haddana jannada galay sababta iyo magaca saxaabiga saddexan ilaahay quraanka ay fuudeeyo cabbasaay hortaagan oo cabbaso ma dhaafi karo amaanta barnaamijku waxa uu yahay waa barnaamij hal su'aal baa lagu weydiinayaa su'aasha haddaad ka jawaabto abaalmarin waxaad u helaysaa $5 barnaamijka magaciisa waxaa la yidhahdaa barnaamijka kadiska beerdhiga waxaan ugu talagalnay bulshada iyo bal in la dhex maro si loo ururiyo aragtidooda markaa ku soo dhawo barnaamijka waa ku soo dhawahay diyaar ma u tahay barnaamijka ka qayb qaadato insha Allah waxaad sheegtaa saxaabigii isaga oo aan weligii tukan haddana jannada galay magaciisa isagoo aan tukan jannada galay saxaabigii aan weligii isagoo aan tukan jannada galay magaciisa saddexan magaciisa ka rabaa ma garanayo okay ma santahay aan weligii tukan haddana jannada galay magaciisa boqornigaashi nijaashi may waa ma santahay bismillaahi raxmaani raxiim barnaamijka kadiska beerdhiga ku soo dhawo marka koowaad waa dhawahay barnaamijku waxa uu yahay hal su'aal aad ka jawaabi doontaa halka su'aal aad ka jawaabto abaalmarin $5 ayaad qaadan doontaa marka ku soo dhawo mar labaad waa dhawahay su'aashu waxay tahay waxaad sheegtaa saxaabigii isagoo oo aanan weligii tukan haddana jannada galay sababta iyo magaciisa su'aasha garan maayo adiga saxaabigii aan isagoon weligii tukan haddana jannada galay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inuu jannada ku jiro saxaabigaas ma adeer ma xasuustaan bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kadiska beerdhiga barnaamijku wuxuu noqon doonaa hal su'aal baad ka jawaabi doontaa halka su'aal aad ka jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin $5 barnaamijka waxaa idiin fududeynaya warbaahinta beerdhiga oo mid ka mid ah warbaahinta afka Soomaaliga ku baxda marka diyaar ma tahay si fiican okay waxaad sheegtaa saxaabigii isagoo aan salaad tukan jannada galay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam jannada ugu bishaareeyay magaciisa saxaabigii jannada galay isaga oo aan weligii salaad tukan waa nijaash waa boqorkii xukumi jiray ardul xabash waa ma santahay waa gaftay su'aasha bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad magacaaga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Awil Sax aan ku soo dhawo barnaamijka kadiska beerdhiga sheegtaa saxaabigii isaga oo aan weligii tukan haddana jannada galay
كم يوري سبر تاجي مثله ma isku day الساعة ما كرني وأنت يورو شيء لا سامر كرر شيء لا okay waa mahadsantahay سؤال كلام وديني سؤال كلام su'aal kale ugu gudbay la soo shandhaafay waxaad sheegaysaa saxaabigii isagoo aanan weligii tukan haddana jannada galay su'aasha haddaad ka jawaabto abaalmarin lacag qaadanaysa waxaad sheegtaa saxaabigii isagoo aanan weligii tukan haddana jannada galay magaciisa marka la socdo camar bin saad oo gartay aad iyo aad u mahadsan yahay magacaaga marka koowaad su-aashii daawadayaal in badan soo wadnay waxaa gartay Mr. Cabdiqani waxaanu helay yeelan doonaa haddii ilaahay idmo lacag dhan $5 oo lacag لا اسماعيل كسر haddaba su-aashu waxay tahay su-aal baan weydiinayna halkaas su-aal ka jawaabto waxay xisaabaan $5 su-aashu waxay tahay waxaad sheegtaa qaybaha ama tirada naxwaha afka Soomaaliga naxwaha afka Soomaaliga wuxuu ka kooban magaciyaal meeleeye xiriiriye fal iyo falkaab qaybihiisa marka ku cad lixdaasaan sheegay waxa weeye magaciyaal meeleeye xiriiriye fal iyo falkaab okay daawadayaal barnaamijka su-aashu qaybaha su-aasha waxaan ugu talagalnay qofkii 5 su'aalood ka jawaaba in uu abaalmarinta yeesho saal ajrigeed Ibrahim wuxuu ka jawaabay 6 xabo oo ka mid ah qaybaha tirada afka Soomaaliga su-aashu waxay ahayd mar labaad ku celiyo sheeg tirada ama qaybaha naxwaha afka Soomaaliga saynu ballan qaadnay qofkii su-aasha ka jawaaba waxa uu helayaa abaalmarin $5 mar labaad soo dhow okay markii aan dhigarayay standardu fasalka 76kii ayaa macallimadii carabiga dhigtay Soomaaliga oo la oran jiray farxiya ayaa ay bartay ma fi hadarteen ku nooshay xamar marka ayadan ka faa'iideystay arday waxay ahayd macallimad markaa shaqo qaran oo ka baxday macadka baro marka barnaamijkan iyo sidoo aragtaa barnaamijka waa soo dhaweyn waa dhiirigelin weeye magaalada ka dhacdo waa dhiirigelin si wada wadada ka faa'iideystay waxa laga helayaa aqoon ما أقول دايما شنو لكن أقول تكور سحول. أوكي وايا وماسية إبراهيم أدي أدي ماسية هذا بقى وحنا بدونسين دونا العقدان $5 سيدي بلانتو هاي القفكي سؤال شكل شبابة العقد تصير إبراهيم صعب